aad baa u mahadsantahay cabdi xakiin marka hore maxaa kugu dhaliyey inaad isu soo sharaxda ama isu soo taagto xilka madaxtinimada Soomaaliya mahadsanid Ridwan waa mahadsan tahay waxa igu dhaliyey kadib markii aan arkay muddo dheer oo wadanku uu 35 sano dawladdii dhexe ay burbursanayd haatanna la joogo 65 guuradii ka soo wareegtay xornimada markii aanu qaadanay iyada oo waliba marka la fiirsho wixii ka soo bilowday carta oo ahaa runtii dib u yegleelidii dawladnimada Soomaaliyeed ilaa haatan uu shaqayn laayahay halkaas oo ay ahayd wixii ay ka dhalatay nidaamkan la yiraahdo 4.5 ama 4.5 oo aan aaminsanahay inuu yahay nidaam ummadda Soomaaliyeed inay horay u marto oo dawladnimadeeda iyo in laga gudbo dhibkan inuu asal u yahay taasa ugu horeysa maxay yihiin marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahaaga ka midka ah aad doonaysid inaad dalka Soomaaliya ka qabato walaal waxa ay qorshaysan hadduu Ilaahay yiraahdo in aan ka saaro kana gudbiyo ummadda Soomaaliyeed nidaamkan midab faquuqa ee 4.5 sidaan ku sheegay aan haatan u bedelno hadduu Ilaahay yiraahdo 5 beelood oo siman nidaamka hadda jir haddaan ku noqdo runtii 4.5 ma ahan dadka badankood waxay yiraahdaan waa 2.5 niman yar oo kooxa oo laba reerood oo sharaf badan oo Soomaaliyeed magacooda adeegsanaya ayaa waxay sameeyeen wax la yiraahdo inay iyagu wax isku maartay farsameeyaan arrintaas oo runtii dawladnimada Soomaaliyeed halis ku ah waxaan rabnaa inaan keeno nidaam ay dadka Soomaaliyeed u siman yihiin dawladnimada kuraasta wadanka oo dhan dadku ay u siman yihiin sidaas aanu doonaynaa cadaaladda marka laga hadlo walaal waxaad ogtahay midnimo lama helayo haddaysan cadaalad imaan gobolada waqooyi ama Soomaaliland tabasho badan bay qabaan mana ahan haatan wax bilowday waxay qabeen weeye ilaa iyo 1960 taas ayaanu dib u saxaynaa waana ku noqonaynaa cadaaladda marka laga hadlaayo walaal waxa kaloo jirta gobolka Banaadir oo ay degan yihiin dad 3 ilaa 4 milyan oo qof boqolkiiba 25 populationka Soomaaliyeed ay degan yihiin wax matalaada kuma laha baarlamaanka Soomaaliya waxaanu samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo matalaad ay dadka Soomaalidu leeyihiin oo Soomaaliyeedaan samayn doonaa waxa kaloo rabaa inaan dadka fahamsiiyo taas matalaadaas waxaanu ka samayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo in Villa Soomaaliya ama Villa Warnigley areadaas aanu ku samayno wax la yiraahdo annexation oo aanu ka goyno magaalada inteeda kale oo aanu ka dhigno magaalo yar oo magaalo ku dhex taala wajiga labaad markaan Banaadir State samayno ayadoo Villa Soomaaliya ay noo tahay xarun federaalku uu leeyahay ayaan waxaan samayn doonaa inaanu dhisno wax la yiraahdo administrative capital oo magaalada Muqdisho ah geeskeeda dhinacay doonto ama xagga waqooyi hadda airportka laga samaynayo ama galbeedka ama koonfurta dadka iyo deegaanka ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa taas waxay keenaysaa in gobolka Banaadir oo gobolka sidaan hore u sheegay ugu dadka badan ummadda Soomaaliyeedna xudunta iyo halbowlaha oo jiritaanka Soomaaliyeed uu helo matalaad waxa kaloo rabaa inaan arrintan uga faa'iideysto qofka Soomaaliga ah dhulka Soomaaliyeed oo dhan iska sharaxi karaa dhiigiisa iyo jinsigiisa iyo dhalashadiisa ayaa waxa weeye u sahashay meeshuu doono inuu iska sharaxo marka matalaadda loo samaynayo Banaadir qof kasta Soomaali uu isku sharaxi karaa sida uu qofka Banaadir ka taga Garowe ama Kismaayo ama Baydhabo ama Hargeysa uu isugu sharaxi karo tusaalaan ku siinaya dimuqraadiyadda adduunka kuwooda ugu horumarsan oo Mareykanku ka mid yahay wax kasta adduunyada dimuqraadiyadda population baa lagu saleeyaa waxaan u soconnaa inaan u guurno in dadka population lagu saleeyo oo hadhowto hadduu Ilaahay yiraahdo dadka inta laga tirinayo 5 beelood bay hawsha ku soconaysaa sidaan ku sheegay laakiin waxa loo gudbi doonaa in waxa weeye tirada lagu qaybsho dad badan oo sida Mareykanka oo kale maadaama halka wax badan joogay waxa weeye gobol 7 gobol oo Mareykana ayaa 435 kursi hal kursi ku leh waa 7 gobol oo ka tirsan wadanka Mareykanka halka hal gobol oo la yiraahdo California oo leeyahay 52 kursi marka hadhowto qofka Soomaaligu meeshii uu guuro ama 30 bari ama 2 week wixii la yiraahdo ay dhiiga uu qaato halkaas laga dooran karaa waxaan rabaa dadkeena marka sheekadan la kheyraanayo oo ummadda Soomaaliyeed ehelka oo iswada dhashay lagu kala fogeynayo inaan meesha ka saarno oo aanu dadka soo celino Soomaalinimadii iyo walaalnimadii walaal waxa ay qorshaysan dhanka amniga dal walba awoodiisa waxay ku xiran tahay inta amnigiisa
ciidankiisa tababarkiisa iyo dhaqaalaha ku baxa sidaad u ogtahay adduunyada wadamada badankood budgetka ugu badan oo lacagta ugu badan waxay ku baxshaan ciidanka annaguna si aanu waddanka nabadgelyadiisa u hanano waxna uga qabana dhibaatadana haysata una awoodno inaannu kontaroolno oo aanu mas-uul ka noqonno xuduudaheenna ceer bad iyo dhulba waxaannu tayayn doonnaa sarana u qaadi doonnaa kharashaadka iyo tababarrada iyo nolosha ciidamada iyo familadoodaba dhanka dhaqaalaha sidaad og tahay dhallinyaro soomaaliyeed oo kuwii jaamacadaha ka baxay u badan ayaa waxa weeye tahriib aadaya oo sanad walba dad aad u badan oo nooga dhimanayaan soomaaliya baaritaanno badanoo la sameeyey ama warbixinno badanoo diyaaroo la heli karo waxay sheegayaan malayga laga xado baddeenna ee si sharci darra looga kalluumaysto inuu balaayiin dollar yahay taasoo aannu annagu soo saaranno malaygeenna waddanka markaan nabadaynana aannu beeraheenna aannu soo saaranno xoolo awalba ilaahay waana siiyo qani baan ka ahayn taas ayaa waxay keeni kartaa in dhallinyaradeenna keliya inaannu shaqo ugu helna maahane xataa dad kaleeta ay noo soo shaqo tagaan waxaa kaloo jirta keliya dad ma tahriibinno lacagteennaan tahriibinnaa dadka soomaaliyeed oo bariga afrika degan jamhuuriyadda iyo waddamada dariska oo soomaalidu ku nooshahayba waxa weeye saad og tahay caafimaadka boqolaal milyanay waxay ku aadaan waddamo dibadda waxaannu awoodi doonnaa inaannu isbitaalaad casriya oo specialtigi iyo wixii oo dhan leh oo waxaa la yidhahda private public partnership oo dawladda iyo ganacsatada soomaaliyeed ay wada leeyihiin aannu magaalooyinka waddanka ka samayno markaas maamada soomaaliyeed ee u baahan ama in jilba laga bedelo ama qallin yar lagu sameeyo uma baahna inay meel aado waxay helaysaa canugii ayeyda u ahayd amba waxa weeye qaraabadii ayaa la joogi karta oo gurigeeda isbitaal ku yaalla lagu daryeelaya dad badan baa isweydiin kara cabdixakiin ma nin qurba jooga ma nin gudaha soomaaliya ku noolba bal dadka u sharax walaal labadaba waxaan odhan karaa qurba joog iyo qaran joog baan ahay nin isugu jira aniga waxa waaye waa deganahay xamar tusaale ahaan wiilkaygii xanaanada ka bilaabay magaalada muqdisho ee ku dhashay ayaa jaamacadda banaadir ku qalin jabiyey ilaa haatanna ka shaqaynaya hanti baan ku leeyahay canshuur bixiyaanahay waan deganahay nin marka waxaanahay waddanka jooga in badan jooga haddee dabcan maraykankana degan halkan haddee dan baana keentay wakhtigii dadku dhibka uu dhacay oo waxa weeye dhibaatadu dalka ay ka dhacday aqoon baan halkan ka helnay shaqooyin baan ka helnay dadka soomaaliyeedoo xirfadlayaasha ah oo adduunka ku kala baahsan ayaa waxaan rabaa inaan u abuurno fursaday ku noqdaan oo waddankooda ay ugu noqdaan hadduu ilaah yidhaahdo waayahay ugu dambayn rajo intee leeg ayaad qabtaa wallaahi rajadaydu way badan tahay sababtoo waxaan rabaa inaan anigu ku soo celiyo sharafta iyo kalsoonida lagu qabo qofka mas-uulkoo soomaaliyeed waxaana rabaa inaan halkan dadka soomaaliyeed uga sheego anigu inaan booska madaxweynaha haddaan ku guulaysto aan ugu shaqayn doono si volunteera oo aanan wax mushaara qaadan doonin waxaa kaloon rabaa inaan sheego inaan qoraal ahaan u soo saari doono waxa aan hanti ama soomaaliya ama maraykan ama meel kale aan ku leeyahay si loo ogaado in cabdixakiim ahaan aan anigu kursigan ka faa'iidayn